السلام عليكم كسو دبادا برنامجka Fac cusub waxa idin daadihinaya anigoo ah Ramla barnaamijkeena waxaad ku daawan doontaan xubnaheena joogtada ahaa sida xubintii wararka xubintii maalinteyda xubintii akhlaaq wanaag iyo xubintii ciyaaraha iyo xubintii su'aalaha iyo xubinteeni kale suugaanta haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wararka sidee ayay caruurta Soomaaliyeed uga hortageen cudurka safmarka ah ee coronavirus oo wajigiisa labaad ka bilowday dalka waxaan kulannay caruur ka soo baxda iskuulka kuwa oo wadada hareeraheeda marayeen waxaana ka muuqatay inay taxadar dheeraad ah sameeyeen ka hortaga cudurka COVID-19 waxaana loogu baahan yahay qof walba inuu ka ilaaliyo saaxiibadiis waalidkiis iyo walaalihiis inuu ka ilaaliyo cudurka halista ah ee coronavirus magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay kulan ku saabsan ka hortaga dhibaatooyinka loo geysto caruurta Soomaaliyeed waxaana seminar ku saabsan sidii wacyigelin loogu sameyn lahaa dhibaatooyinka ay ku kulmaan caruurta qaar lagu qabtay magaalada Muqdisho wariyaasha ayaa sidoo kale doodo ka sameeyay sida ugu fudud ay u baahin karaan inay dhibaato loo geysan caruurta shaqeysata iyo kuwa u baahan caawimaad waqtiyada lagu shiro break time-ka maxay caruurta sameeyaan ardaydan ayaa markay qaataan xiisadaha ugu horeeyo la siiyo waqti ay wax ku soo cunaan iyo waqti ay ku sheekaystaan qaarkood waxay isku celiyaan casharada ay maalintaas qaadanayeen iyo sidoo kale waxyaabihii leeliga ee macalinka u soo diray waxaana ay ka helaan inay noqdaan kuwa waxbarashada ku fiican waan ilaaway inuu cudurka coronavirus jiro oo qatartiis aad u badan tahay intaan wajiga gacmaha la aadin waa inaan hadda gacmaha iska dhaqaa sababta aan sidan u sameynayno wasaaradda caafimaadka waxayna faraysaa in markaad hindhisayso xusulka aad laabatid ku dabool afkaaga ama sankaaga afshareer ku dhaqo gacmahaaga mar walba jeermis dile waa inaad dadka ka fogaataa ilaa iyo 1 mitir waa inaad dhaqdaa gacmahaaga mar walba haddii aad isku aragto qandho ha aadin saaxiibadaada ee u sheeg waalidkaaga waa inaan ku dadaalnaa nadaafadda si aan iskaga ilaalino cudurka coronavirus waa maxay sababta san u sameynayno maxaa yeelay waxaa jira cudurka coronavirus saameynta cudurka coronavirus uu ku hayo wadamada kale markii loo barbar dhigo Soomaaliya waa mid liidata laakiin waa inaan ku dadaalnaa nadaafadda qof walba ka tagtoono cudurkan markaan ku soo dhawaada xubintii maalinteyda ku soo dhawa barnaamijka Fac cusub waa dhawaay magaca Mustaqgeel Maxamed Diilaan meeqa sana jirtaa 12 bar waxaad noo sheekaysaa maalintaada subaxdii 12 soo kaca waan dhaqdaa waa caleystaa isqaata salaad tutada cuntada cuna dugsiga aada
saddex saac ka imaadaa hooyadey qadaa kariya waa qabaystaa waa cunaa waa jiifanaa galada dan dugsiga ka imaanaa waa ka imaanaa dugsiga ka imaatid dugsiga ka imaanaa hooshta meelaas xaaqaa maqriba waa isqaadan waa tutana hooshta isqa qabana teemta jiifanaa la gaaraa waa jiifanaa subaxdii alisayna saas u soo kaca dugsiga aadaa markaana waxaa idinku soo dhaweynayaa xubintii akhlaaq wanaag. bismillaah anigoo magacayga Siyaam Cabdiqaadir Cabdi oo ka tirsan xarunta barbaarinta carruurta booliiska Soomaaliyeed waxaan halkaa idinku soo jeedin doonaa sheeko yar oo gaaban oo si fiican idin qaban doonto. sheekadaasna waxay ku saabsan tahay inaan la dhibaateynin qofka muslimka walaalkaaga haddii gabar maanta ma jeclaan lahayd inaa hooyadaa la foodeeyo marka maxay la tahay gabar Soomaaliya inaa weligaa la foodeeyo sababtoo hooyadaa ay gabar ka soo bilaa hooyadeeda gabar markasta gabar kale foodey kartaa hooyadaada loo feedeysay la mid tahay. hadda ka hor ayaa waxaa jiray gabar yar waxay dhiga jirtay iskuul gabar yar oo qaangaarteed gabadhii iskuul ay dhiga jirtay iskuulkii ay tagtay iskuulkii markaas basay saarneed baskii ayaa muxuu ku tagtay meel oo lagu damaashaado meeshii markuu ku joogsaday asaa gabadhii way baxday meeshii iyada way isku soo sawirtay dadku ay sawirayeen gabadhii marka dhinaca gadaalay iska fadhiisatay markay sawirkeeda dhamaysatay baskii ayaa dadkii ku soo aruureen baskii ayaa gabadhii ka tagay markaas baskii ninkii darawalka ayaa u wacday ninkii darawalka uu maqli waayey gabadhii markaas se u soo socod iyadoo jidka kusoo jirta ayay maxay maqashay qaylo oo waraabe maqashay asay maxay tahay gabadhi way isku naxday way socod maxay aragtay mundul yar oo qurux badan oo dhisan waxaa u dhexaysa tilaabo yar oo bad biyo gabadhii waa soo wareegsatay meeshii ayay gashay meeshii ayay maxay kula kulantay wiil yar wiilkii ayay maxay ku tiri anigu waan baahanahay yaa bas ayaa iga tagay iskuul ugu sheekaysatay kusoo dhacday iyo waxay soo aragtay wiilkii maxaa mudulkii yaraa oo quruxda badnaa waxaa u yaalo keliya salli oo ku seexdo iyo barkin iyo caag oo ku dugta bis iyo hal sariir bis oo taal iyo kitaab oo akhriso bis markaas gabadhii markaas muxuu ku seexiyey saligii salaada oo si ku tukan jir markaas wiilkii gabadhii iyadoo jiifto gabadhii way fiirinaysaa wiilkan saxaanka u gal markaas wiilkii niyadiisa ayaa maxaa kusoo dhacaysaa shaydaanka ayaa muxuu sheegayaa gabadhan foodey kan foodey ee ku sameeyey farxumey gabadhan wiilkii meesha muxuu ka shitay kan waagi hore maxaa jiri jiray bahalo oo dhiilo oo nal laga dhigto wiilkii shumac yaroo shitay shumciyo faraaskii guwa markii la dhaabo wiilka gabadhan farxumey gabadhii markaas subaxaa la gaaray maxay u geey aabeeda u tagtay meeshay rabto wiilka geey aabeeda u geey markaas ay gabadhii maxay tiri sidaas wiilka igal markaas maxay faro isku goy markaas wiilka aabe muxuu dhahay igu wac wiilkii waa loo wac maxaa la wuxuu weydiiyey sababta faraaskii ugu waay markaas muxuu dhahay adeer aniga waxaan faraaskii ugu waay shaydaan ay dirdira muxuu dhahay yaa gabadhan yaa farxumey anigana sidaas ayaan ku diidayay sababtee gabadhan waa hooyadeeda kale yaa gabadhanne waa hooyadee muxuu dhahay gabar dhan waa hooyadii kale hooyadeena waa gabar marka sidaas ayaan muxuu dhahay adina waxaan kuu talinahay weligaa inaanan gabar walaasha aan xumeyno gabar maxay ka faracantaa hooyada. bismillaah anigoo magacay Cabdiraxmaan Maxamed Aadan Bar ogtay xarunta barbaarinta carruurta booliiska Soomaaliyeed haddana waxaan soo jeedin doonaa sheeko oo ku saabsan inaysan fiicnayn tuugnimada. tuulo ayaa jirtay waxaa ku noolaa nin oo magiisa la jooga askarta tuulada ku noolaa ayuu kala mid tahay maalin maalmaha ka mid hurdo ayaa la tagtay maalintaas askarta way baxeen markaas shaqadoo ka dahay wuu soo baxay soo dhawaaq faras oo maqlay markuu maqlay
farastii waa ka dawaarifaysan ninkii markaas waa iska qaatay meesha ku tay askarta meesha oo lagu xanaanay ku tay markaas taliyaha meesha ka tali dameer haystay dameerka faraska uu qaad markaas taliyaha faraska uu qaad markii shaqada la isku saabsan jooxa waa arkay farastiisa qaad markaas dowladda boqorkeed oo insaan oo dhan boqor oo dacwo qaba yaa ka qabtaa taliyaha markaas markhaatiyaalka keensala dadka dhammaan oo keensada markaas taliyihii waa la heli meeshaasoo ka dhamaad barnaamijka faac cusub magacaha Abdiraxmaan Axmed Maxamed. hal su'aal aan rabaa inaan ku weydiiyo ma ogashahay waxaa sheegaysaa xubinta mar walba ee wasakh noqoto oo cad noqoto carab oo mahadsantahay isla su'aashaan ayaa waxaa u raadinaynaa cunug kale maadaama Cabdiraxmaan ka jawaabay kusoo dhawo barnaamijka faac cusub magacaaga noo bilow yaasir waa mahadsantahay yaasir waxaa ku weydiinaya inaan su'aal ku weydiiyaa rabaa ma ogashahay waxaa sheegtaa xubinta mar kasta ee wasakh noqoto caddaan noqoto carabka waa mahadsantahay markaana waxaan soo dhaweynayaa xubintii suugaanta صلاة
أوقات نبيس أتكينا إلى أدومديس أسا أرزاق ذسية أساءه سرية أحد لمد مجوغي الواحد الأحد الواحد الصمد الله أكبر أبا أرحمنا نحريسه الواحد الأحد الواحد الصمد الله أكبر أبا أرحمنا نحريسه ayaan lees isaabayu abaal markaad helaaye waa ihlu naar ogow ibliis iyo dadkiis ayaan lees isaabayu abaal markaad helaaye Thank you.